munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay laguna taageerayay musharaxad Barni Nuur oo u tartamaysa baarlamaanka dalkaasi Sweden ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm. waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay xildhibaan Cabdullaahi Xaaji Dayib iyo xildhibaan Farxiye Muumin oo ka watirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyntii waxaa goobtaasi hadal ka jeediyay xildhibaan Cabdullaahi Xaaji Dayib oo ka faallooday taariikh nololeedkii Barni Nuur ah musharaxad u tartamaysa baarlamaanka dalkaasi Sweden. kuna faantaan gabar Soomaaliyeed ugu horeysay ayadoo yar la keenay 88 baa la keenay 30 sano meeshan joogtaa khibradna waa u leedahay aqoonna waa u leedahay dibadna way ka soo shaqeysay safaaradii bay ka soo shaqeysay waxaan rajeynayaa gabadha Soomaaliyeed ugu horeysay Sweden ka soo baxday inay noqoto Barni Nuur. caawa waxay ii tahay sharaf inaan idin hor istaago waxay ii tahay runtii taariikh waxay ii tahay runtii wax aan la iloobi karin anoo shalay galab ka soo baxay xamar saakayna imiday Sweden waxaan u soo baxay oo u imiday oo ugu muhiimsanna waxay tahay runtii arinta aan caawa halkan u joogno oo ah in Barni ay u sharaxan tahay golaha shacabka ee baarlamaanka Sweden. waxaan ogahay xaaladda marka aad ku jirtid campaign Barniyay inaysan sahlanayn inay adag tahay adigoo gabar ah adigoo maaragtay dhul islaamiyeed joogto anigoo dalkeennii joogna aan ognahay waxa laga soo maray waxa u baahanahay marka ay tahay caawa inaan aad ugu faraxno soo dhaweyno garab istaagno gabar yar Soomaaliyeed dhalinyaro ah wax baratay firfircoon waxna ka bedeli karta shuruucaha u degsan dalalka aan ku kala noolnahay. hadaa fiirisid Hani Cumar Minneapolis ay ka soo baxday gabar kalena hadda la soo doortay magaceeda ma xasuusto waxa arki kartaan inaan qaangaarnay Soomaali ahaan markii laga bilaabo burburkii dalkeena ee aan u soo wada baxnay dalalka dibadda. ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadal ka jeedisay Barni Nuur oo musharaxad u tartamaysa baarlamaanka dalkaasi Sweden waxaana hadaladeeda ka mid ahaa marka tan ugu muhiimsan waxa waa in la codeeyo in saan xisbiga xag jirka ah aysan xoog u yeelan ana runtii codkeenana uu noqdo sanadkan sanad oo strategically aan u fakarno oo xisbi weyn oo iska celin kara Soomaali Dimuqraatana codkeena siino way jiraan waa xisbiyadaas waa xisbiyada kuwa la dhaho Röd Gröna xisbiyadaas ugu badan runtii xisbiyada iska celin kara igaraal ahaada dad mudaraatad meeshan joogan mudaraat si lagu aqoon jiray maaha aad bay isku bedeleen marka waxaan rajeynayaa inaad codeysiin waan ku farxi lahaa inaad runtii igu taageertiin inaad codkiina siisiin oo igu aamintiin 4 sano kadibna insha Allah inaa il xisaabsantiin hadii Ilaahay aad iyo aad u mahadsantiin. guud ahaan soo qaybgalayaasha munaasabadaas oo aragtay talooyin kala duwan u gudbiyay musharaxad Barni Nuur ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan. محمد عبد القادر الدار تلفزيون قارن كصوماليات ستوكهولم.